Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka fikiraya inuu xilka ka qaado taliyaha ku-meel gaarka ah ee Hay'adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ee NISA Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Fari. Roble toos xilka ugama qaadi karo Yaasiin Fari, hase yeeshee wuxuu horgeyn karaa golaha wasiirada oo leh awoodda xilka qaadistiisa. Yaasiin Fari waxaa lagu tilmaamaa gacanta midig ee madaxweynaha hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoona uu ra'iisul wasaaruhu tuhunsan yahay inuu caqabad ku noqon karo hufnaanta doorashada. Sida muuqata ra'iisul wasaare Roble ayaa qaadaya tallaabooyin dhowr ah oo lagu cadaadinayo Yaasiin Fari ka hor inta aan si toos ah xilka looga qaadin. Dhawaan wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa Yaasiin Fari ku amray inuu warbixin dhammaystiran ka keeno sababta iyo halka uu ku xiran yahay Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur. Hase yeeshee Yaasiin ayaa waqtigii loo qabtay ku soo diray warbixintiisa. Mar kale wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa Yaasiin Fari ku amray inuu dhammaan ciidanka NISA ka soo saaro garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, isagoo faray in ammaanka garoonka uu si buuxda ugu gacan geliyo ciidamada booliiska Soomaaliya. Wasiirka amniga ayaa qoraalkiisa ku shaaciyay in go'aankan la qaatay kadib markii ay bateen cabashooyinka ay ka soo gudbiyeen hay'adaha ka howlgala gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Ciidamada NISA oo ku kaca xadgudubyo isugu jira gacan qaad iyo handadaado joogto ah lehna cadeymo buuxa. Yaasiin Fari waxa uu hormuud u yahay khilaafka haatan dib uga soo dhex cusboonaaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii uu muran xoogan hareeyay kursiga uu tirsigiisu yahay Hoob 67 kaas oo sida la sheegay uu Yaasiin Fari ku soo baxay bishii November ee sanadkii hore. Taliyaha ku-meel gaarka ah ee Hay'adda NISA ayaa galaaftay 7 xubnood oo ka mid ahaa guddiga xalinta khilaafaadka kadib markii si aan sax ahayn ay u maareeyeen cabashadii laga keenay kursigaasi. Ra'iisul wasaaraha ayaana 18 December shaqada ka eriyay xubnahaas. Yaasiin Fari oo sidoo kale ku magacaaban taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir ayuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo bishii September u magacaabay inuu noqdo kusimaha Hay'adda NISA maalmo kadib xilka qaadistii uu ra'iisul wasaaruhu ku sameeyay taliyihii hore ee Hay'adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Soomaaliya ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Ismaan Abuukar Dubbe, golaha wasiirada ayaa taageeray dardargelinta ciidamada amniga iyo sugidda amniga caasimadda si ay inoogu dhacdo buu yiri doorasho nabdoon oo xasiloon. Waxaa la ayiday oo la taageeray qorshaha amniga caasimadda oo horey loo ansixiyay si loo dardargeliyo amniga caasimadda, ayuu yiri wasiir Dubbe. Wasiirku waxa uu sidoo kale yiri dardargelinta ciidamada amniga iyo sugidda caasimadda ayaa iyagana la taageeray oo la ayiday iyadoo loogu talagalay dhammaan 17 degmo in si degdeg ah looga howlgalo si ay inoogu dhacdo doorasho nabdoon oo xasiloon. Haddii Roble uu meesha ka saaro Yaasiin Fari, waxa uu noqonayaa ninkii saddexaad ee ku dhow madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee uu meesha ka saaro marka laga soo tago Fahad Yaasiin Xaaji Daahir taliyihii hore ee Hay'adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Soomaaliya iyo Cabdullaahi Aadan Kulane oo soo noqday madaxii shaqaalaha ee Hay'adda Sirdoonka Soomaaliya. Dhinaca kale waxa uu dagaal culus ka qarxay duleedka magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland kaas oo u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed. Sida aan ogaanay, dagaalka ayaa waxa uu xooggiisu ka dhacay tuulada Saaxmeygaag, waxayna xiisadan ku salaysan tahay deegaameynta deegaankaasi oo u dhaxeeya degmada Boocame ee gobolka Sool iyo tuulada Birta Dheer ee gobolka Nugaal. Khasaaraha dagaalkan ayaa ilaa hadda inta la xaqiijiyay waxa ku dhintay 6 ruux oo ka kala tirsan dhinacyadii dagaalamayay, iyadoo oo ay ku dhaawacmeen in ka badan 15 qof oo kale. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya in dagaalkan uu yimid kadib markii xal laga gaari waayay muranka ka taagan nidaamka deegaameynta, waxaana colaadan ku barakacay qoysas badan xilli ay abaaro iyo xaalado bini'aadanimo oo kale ay ka jiraan gobolka. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka iyo mas'uuliyiinta maamulka Puntland. Sidoo kale ma jirto waan ilaa hadda laga dhex bilaabay labada beelood ee halkaasi ku dagaalamaya. Ma aha markii ugu horeysay ee deegaanka Saaxmeygaag uu ka dhaco dagaal beeleed, mana jirto ilaa hadda wax tallaabo ah oo horey loo qaaday si loo xalliyo colaadda soo laalaabatay.